Beenaalayaasha adduunka jooga oo dhan, marka la isku geeyo marmarka qaarkood midka ugu xumi waa cabsidaada. Laba shay ayaa sideedaba in fara badan dadka ka hortaagan nolol ay ku qanacsan yihiin oo farxad leh in ay ku noolaadaan. Waa wixii ka tagay iyo isbarbardhigga dadka kale. Taasaa sabab waxay u noqotaa in ay xaqiraan waxyaabaha Ilaahay uu siiyey ee haystaan. Maxaa yeelay mustaqbalka wuxuu barbar dhigayaa wixii soo dhaafay. Waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyeyna wuxuu ku iloobayaa marka uu arko dadka kale Ilaahay waxa uu siiyey. Nolosha sideedaba guud ahaan, qof raaxaystay wuu rafaadaa, mid rafaadaasa raaxaysta. Waxaad haysataa 168 saacadood isbuuc walba. 40 saac waxaa kaa qaadatay shaqo, 56 saac waxay aaday hurdo, 35 saacadood qubays, cunto, hadal iyo wixii la mid ah. 7 saacadood inaad wax akhrisatid oo aad maskaxdaada kobcisatid. Maxaa yeelay cilmigu wuxuu kobciyaa maskaxda sida cuntadu ay u koriso jirka. Waxaa weli kuu soo hartay 30 saacadood oo aad haysataa, taasoo ku gaari kartid hadaf kasta oo aad doonaysid inaad rumaysid. Midna ogow, haddaad ogaan lahayd siday dadka dhaqsi kuugu ilaawi doonaan geeridaada kadib, umaad noolaateen inaad cidna raali gelisid oo waqtigaada ma siiseen aan ka ahayn Allah subxaanahu wa tacaala. Waxay nolosha ugu dambayn kaaga tagtaa oo ay ku bartaa, waan dhibtooday, waxbaan bartay, waanse isbedelay. Waana meesha ugu muhiimsan gabagabada noloshaada. Waarimaysidee warha kaa hara. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.